بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN. barnaamijkan gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa maxay yihiin xalalka macquulka ah ee uu ku dhamaan karo dagaalka Iiraan. ma Iiraan in laga guuleystaa sidaas arrintu ku dhamaan kartaa. Mareykanka iyo Israa'iil in laga guuleysto oo si military ah lagu guuleysto dagaalkan ku soo afjarbi karaa. sida hadda xaaladdu ay tahay ma ku dhamaan karaa. maxayse yihiin waxa qobaradu ay ka qabtaa ra'yi ahaan sida dagaalkan uu ku soo dhamaan karo. inkastoo la isku raacsan yahay Iiraan in la loodi waayay 40 maalmood oo dagaal ah iyo 47 sano oo cunaqabatayn lagu hayay, haddana waxay la soo baxday awood dheeraad ah. dagaal cusub oo qarxa waxa la sheegayaa in halistiisa oo wato suurtagalna ay tahay inuu ku faafo gobolka. ciidamada Iiraan ayaa waxay wacad ku mareen dagaalku inuu ka gudbi doono marinada imika la isku hayo iyo xuduudaha gobolka. waa hanjabaad aad u culus. dhinaca kale Trump ayaa isaguna wuxuu ku goodinayaa in arrintu sidan aysan sii ahaan doonin haddii Iiraan aysan samayn tanaasul. jug culusna loo geysan doono si hadalka uu dhigay. haddaba laba khabiir oo arrimahan si weyn uga faalloonaya ayaan idin soo gudbinaynaa macluumaadka ay soo bandhigeen. maxamed cadde oo xogahan soo ururiyay ayaa qadka ku jira. maxamed, maxay warbixintan ku bilaabanaysaa? Jeffrey Sachs oo ah nin ku takhasusay dhaqaalaha, horena agaasimo uga ahaan jiray maxadka dhulka ee jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka, isla markaana la taliyo sare u ah qaramada midoobe arrimaha horumarka la xiriira bariga dhexe iyo Afrika. maqaalkan waxa uu ku bilaabay wadajirka u qoreen Nabil Farisi. asaga 3 bilood ayaa hadda laga joogaa markii ay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay qaadeen ka dhanka wadanka Iiraan bishii February 28keedii sanadkan 2026. xalka istiraatiijiyadeed xasilooni keeni kara ayaa waxa uu yahay in la qaboojiyo dagaalka oo meeshiisa ku istaago. arrintaasna way caddahay. tillaabooyinkii dagaalka lagu furay Israa'iil iyo Mareykanka isku dayeen inay xukuumadda Iiraan bedelaan iyo in ay guul daraysatay fikirkaasi maalintii koowaad ee dagaalka. wixii markaasi ka dambeeyana xaqiiqooyinka asaasiga ee la arkay waxa weeye in isbedel weyn aynan fili karaynin Israa'iil iyo Mareykanka oo dagaalka qaaday. waa gartay. waayahay maxamed, ahdaafta dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay u qaadeen waxaa ka mid ahaa weliba si cad loo sheegay in meesha laga saaro dowladda kacaanka islaamiga ee wadanka Iiraan. haddaba Iiraan ma jebin karaan wadamadani? maxayse qabarada ka tiri arrintan? walaalka Jeffrey Sachs iyo gabadhan Iiraan Miss Faris ay sameeyeen waxa ay ku xusayaan Iiraan in dowladda Mareykanka iyo Israa'iil aysan jebin karin marka la fiiriyo waqti kasta oo ay qaataan iyo qiimo kasta oo labadan xukuumadood ay ugu fariisato oo ay bixiyaan. taa bedelkeedii waxa weeye Iiraan inay waxyeello weyn u geysan karto wadamada gacanka iyo Israa'iil, oo Israa'iil iyo gacankaba aynu u adkeysan karaynin khasaarahaasi, iyo hubka kaydka ah ee gantaalada Iiraan haysato iyo maraakiibta ka dhanka ah maraakiibta iyo xulafada ay gobolka bariga dhexe ku leedahay Iiraan, oo ay ka mid yihiin ururada xuutiyiinta laga soo bilaabo oo ilaa Xisbullah lagu keeno ururada Ciraaq ka jira iyo Falastiiniyiinta. inta waxa dheer oo awood weyn sii siinaya Iiraan waxa weeye marinka Hormuz oo cabsi weyn gelinaya Mareykanka iyo Israa'iil inay dagaalka sii wadaan. wadamada gacanka saliidooda iyo gaaskooda kaabayaashooda ayaa dayacan. hubka Iiraan ay haysato gantaalada iyo diyaaradaha droniska si sahal ay ku gaari karaan goobaha shidaalka lagu safeeyo, dekedaha, goobaha biyaha badda laga safeeyo, dhuumaha
saliidda qaada ee Saudi Arabia, Sultanka Imaaraadka Carabta, Qatar, Kuwait, Ciraaq iyo Bahrain ay leeyihiin. wadamadaas oo dhan mid diyaar waa ma jirto in dagaalka uu sii ballaarto oo danaheeda khatar galaan. midoo dagaalka hadduu sii ballaartana keeni karaysa in marinka Hormuus gabi ahaanba uu xirmo, burburana kaabayaasha gobolka bariga dhexe ee saliidda laga soo saaro. taana waxay dhalinaysaa qalalaase xagga shidaalka ee caalamka oo dhan, heer ka xun wixii la arkay 1970kii. waxaana cad masiibadaasi in xukuumad maankeeda fiyowdahay aynan lugaha gashanaynin xaalad sidaas. waa gartay arrimaha laga xusi karo colaadana waxaa ka mid ah go'doominta lagu hayo Iiraan iyo dekadaheedii la xanibay. arrintaasi saameyn ma ku yeelatay bay leeyihiin khubradani? ismariwaaga hadda jira ma aha mid isu dheelitiran. Maraykanku wuxuu isku dayayaa inuu go'doomiyo shidaalka ay Iiraan dibadda u dhoofiso marinka Hormuus. waxaa kale oo khatar ku jira oo xasilooni darro weyn ay ka jirtaa suuqa saamiyada shidaalka ee caalamka. Asia, Yurub, Afrika ayaa ascaarta aad ugu kacday xagga shidaalka, taasoo si tartiib ah qalalaase xagga shidaalka caalamka oo dhan gelinaysa. laba si ayaa hadda suuragal ah in arrintan lagu xaliyo. oo midda koowaade dagaalku waa inuu sii ballaartaa sida ay Israa'iil rabto. Israa'iilsha maanta jirta xukuumaddeeda wax kale kama shaqeyso aan ahayn dagaal ooganimo. waxaa weeye xukuumad xag jir ah oo rabta inay isballaariso, ma rabto nabad, mana xiiseynayso diblomaasiyad. Israa'iil waxay rabtaa dhulka Falastiiniyiinta oo dhan ayada inay ka taliso iyo wadamada dariska ah. siyaasadaheedana waxaa barataara oo kaaba dowladda Maraykanka. saatee dagaalkeedii marinka Gaza wixii ka dambeeyay oo ay qaramaysay qaybo ka mid ah daanta galbeed, Israa'iil ayaa hadda dagaal waxay ka wadaa Lubnaan, waxayna wadaa inay ciidankeeda ku balaariso koonfurta Lubnaan. waxay dilaysaa dad rayid ah maalin walba oo reer Lubnaan ah. duqeyn xagga cirka iyo magaalada Beirut iyo magaalooyin kale ku haysaa oo ay ku khaarijinayso dadka samafalayaasha ah, suxufiyiinta. tuulooyin dhan ayay cagta marisay oo burburisay. 100,000 oo qof ayay barakicisay. tilaabooyinkeedana maaha kuwo dowlad amnigeeda ka shaqeynaysa, waa meel ka dhac. waa gartay. waa yahay maxay ku sifaynayaan marka khubradani Israa'iil inay doonayso dagaalkan in la sii kordhiyo? xukuumadda Netanyahu ayaa isku haleynaysa mustaqbalka in uu ku xirnaan doono dagaal aanan xad lahayn, gudaha iyo dibaddana saameyn ku yeelanaya Israa'iil. sababtoo ah awoodda military ayaa wax kasta lagu qaban karaa ayuu aaminsan yahay Netanyahu. dagaalka Iiraanna waa ballaarinta fikirkaas uu qabo. dowladda Maraykankana waxaa xakameynaya saameynta siyaasadeed oo ay ku leeyihiin kooxaha masiixiyiinta iyo Zionistayaasha barataara xukuumadda oo qayb ka ah dhaqaalaha lagu bixinayo difaaca, teknolojiyooyinka dabagalka iyo teknolojiyooyinka wax soo saarka oo faa'iido badan dagaalka ku qaba, iyo Congress-ka oo u muuqda in uu u adeegayo danaha Israa'iil halkii uu danaha Maraykanka u adeegi lahaa. si kastoo ay tahay shacabka Maraykanka khiyaarkaasi way arkeen. wixii ka horeeyay Ciraaq, Liibiya iyo Suuriya ayaa lagu arkay. Israa'iilna waxay doonaysaa inay dagaalka sii ballaariso, mana ku jiro danaha Maraykanka dagaalka inuu sii ballaarto. codbixiyaasha Maraykankana waa ogsoon yihiin xaqiiqadaasi, si wanaagsan ayay ogsoon yihiin. doorashada la qabanayana natiijada
waxay noqonaysaa mid aan isku dhafnayn oo si weyn looga soo horjeesto dagaalka dhanka waddanka Iiraan. Israa'iil dhaqankeedana aad ayaa looga soo horjeedaa guud ahaan. waa gartay isla arrimahan waxyaalaha xusidda mudan waxaa ka mid ah in la isweydiinayo dagaalkana goormu dhammaanayaa iyo halka uu ku soo afjarmi karo. maxaa lagu sheegay? waa marka hore in wadaxaajood dhab ah wax looga qabto sidii dagaalkan lagu soo afjar lahaana si hufan looga hadlo. mustaqbalka barnaamijka waddanka Iiraanna ay ku jirto, nidaamka amniga gobolka bariga dhexena uu ku jiro, weliba wadamada gacanka, iyo arrimaha la xiriira nabadda gobolka bariga dhexe. natiijada dhabta ee ka soo bixi karta arrintaasi waxa weeye in ay dhib badan tahay in la meel mariyo arrin sidaasa. madaxweyne Trump aad ayuu daciif u yahay, wuuna nugul yahay, isbedbedelkiisana waa badan yahay. dhowr goor ayuu ka hor yimid Netanyahu shakhsiyan, hase ahaatee dadka lacagaha ku caawiya xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga zaaniistayaasha ah ayaa hadda xulafadiisa maal badan geliyey, iyo shirkadaha sameeya caqliga samayska ah ee Silicon Valley oo faa'iido badan ku qaba dagaalkan. heshiis wax ku oola waxa u baahnaan doonaa siyaasad isku dubaridan oo iyo istiraatiijiyad uu Maraykanku leeyahay. hase ahaatee Maraykanka maanta jira arrintiisu waa ka duwan tahay taas. waxaa muuqata inuu si weyn isugu dhex yaacsan yahay. khiyaarka suuragalka ah labaad waxa weeye in la soo afjaro dagaalka hadda socda. Maraykanka iyo Israa'iil in ay gobolka bariga dhexe ka baxaan, in dib loo furo marinka Hormuz, in Iiraan taa beddelkeedii ay isxakamayso. arrintaana waxay u baahnaan doontaa waxaan heshiis ahayn oo aan rasmi ahayn. uma baahnaan doonto Koongareeska Maraykanka inuu ansixiyo iyo xukuumadda Israa'iil. waxay noqonaysaa dadaal diblomaasiyadeed oo uunan sii wadi karaynin madaxweyne Trump. waxay u baahan tahay oo keliya in dowladda Maraykanku ay joojiso godoominta ay ku hayso waddanka Iiraan. Iiraanna ay ka baaqsato inay dagaalka dardar geliso. Ruushka iyo Shiinaha ayaa laga yaabaa inay danaynayaan xasiloonida gobolka bariga dhexe, saameynna ku yeelan kara Iiraan, taasoo dhiiri gelin karta inay Iiraan isxakamayso. Iiraanna danaheeda ayaa ku jira in ay hesho si ay dagaalkan uga baxdo. wadamada gacankana in ay ka foqo nabarka haya oo ay neefsadaan. halkii laga heli lahaa heshiis qaabaysan oo isku dubaridan iyo luqad labada dhinacba sharafta u dhowreysa oo ah in lagu noqdo diblomaasiyadda iyo in la xakameeyo barnaamijka nuclearka ah iyo hadallo dulmar ah oo looga hadlayo in la furo marin sababa marinka Hormuz sababa bini aadanimo si warbaahinta loogu madadaaliyo. waa gartay gobolkan bariga dhexe ku dhawaad 80 sano dagaal joog buu hayo, colaad iyo xiisad baa ka aloosaneed. xal waara ma loo heli karaa arrintan? maxayse ka leeyihiin qobaradu? in dagaalka la soo afjaro waa suuragal, weli laakiin nabadda loo baahan yahay iyo nabadda muddada dheer qaata ayaa waxay tahay wax muddo dheer loo hanqaltaagayay. mana aha wax aanan suuragal ahayn, laakiin ayaan darro waxay tahay arrintani waxay ku xiran tahay heshiiska Abraham, iyadoo Trump uu isticmaalayo halkudhega ah waa khiyaali xaasidnimo ah in xiriir caadi lala yeesho ama ay yeeshaan carabta iyo Israa'iil, iyadoo Israa'iil ay xadgudub joogtaa ka geysanayso Gaza, haddana ay dhulka Falastiiniinta qaar ka mid a qaramaysay.
oo aanan la xakameyn karin isballaarinta ee bariga dhexe ka wada hase ahaatee in siyaasaddaasi lagu shaqeeyo waa khaldan tahay. waxaa dhab ah haddii dowladda Maraykanku aysan diidin wixii ay diidaysay 75 sannadood, wadamada carabta dhowr goor ayay xusuusiyeen dowladda Maraykanka inay diyaar u yihiin inay Israa'iil nabad la qaataan haddii dowlad Falastiiniintu ay leeyihiin la abuuro. tanna macnaheedu waxa weeye dowladda Maraykanka in ay joojiso codka diidmada qayaxan ah oo lagu dhisayo dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo qaramada midoobay laga ansixiyo xuduudkeedana noqdo Juun 4 1967 meesha xuduudka ahaa. Israa'iilna waxaa waajiba in laga dalbado in ay dowlad caadi noqoto xuduudkeeda ku ekaato. markaas wadamada gobolka amni waa ka wada shaqeyn karaan oo Iiraan ay ku jirto, Saudi Arabia, Masar iyo wadamada kale Carabeed halkii ay wada lahayd tallaabo military iyo qariska tuurnimo iyo waxa hadda socda ayaa sii soconaya. waa gartay gabagabadii markaa dagaalkan sidee buu u saameyn karaa dhaqaalaha caalamka iyo xitaa amniga caalamka? nabad haddii qodobka dambe la meel mariyo caalamkana uu aqoonsado xukuumad ay Falastiiniintu leeyihiin, ma aha oo keliya in masiiriyinka maamulo kala duwan oo Maraykanku iyo xadgudubyada ay sameeyeen oo dhacay in laga gudbiyo, waxay noqonaysaa in colaad oo dhan ay dhamaato. hadda laakiin heshiiskan hadda ku meel gaarka ah ayaa ku filan in lagu difaaco dhaqaalaha Maraykanka dhaqaalaha caalamka oo keliya si uu u burburin, isla markaana gobolka laga badbaadiyo dagaal kale inuu mijaha gashto. laakiin xaqiiqada looga gudbi karo dhibkaasi waa la yaqaanaa in dhaqanka iyo taageerada indhala-aanta ee Maraykanka ee Israa'iil inay istaagto oo Israa'iil ay dowlad caadi noqoto. waa tahay maxamed, aad baad u mahadsantahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka. daawadee si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgeli.